وسلم waxaa maanta farxad weyn noo run ahaantii aniga iyo wafdi aan hogaaminayay oo dalka Masar shaqo rasmi ah u tagay oo kamid ahaa wasiir dawladda arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo isboortiga iyo xubno kale inaan dalkii kusoo anagoo nabad qabno kusoo guriga noqono waxa kale oo Nairobi aan ku kulano iska soo raacnay wasiir ducaale hawl shaqo muhiim ah u tagay dalka Qatar Masar waxaan u tagnay anagoo matalaynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaanu ka qayb galno shirweynaha dhalinyarada adduunka oo uu qabanqaabiyo kuna baaqay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi shirweynahaas oo lagaga hadlayay arrimo fara badan oo taabanaya dhalinyarada maadaama xuduudda kaliya ee adduunka ku xisaabtamaya dhaqaale iyo xoogga wax soo saar ay tahay waxaanu ka baranay waxyaabo badan oo innagana haysta inay dunida caalamka guud ahaan gaar ahaan dunida muslimka iyo dunida carbeed ba ay haystaan oo ah dhibaatada argagixisada iyo dhalinyarada la qalday ay ku hayaan caalamka guud ahaan gaar ahaan dalalkooda waxa kale oo aan ka baranay innagana tusaale ah inoo ah xiriirka ka dhaxeeya waxa la yiraahdo al-irhaabka ama argagixisada iyo marka aan fursado shaqo la abuurin dhalinyarada loo abuurin la jihaynin dhalinyarada wacyigelin fiican lagu sameeynin inay ka faa'iideysan karaan dad khaldan oo afkaar khaldan wata madaxweyne Sisi waa kulanay waxaanuna qaadanay waqti dheer oo aan gaar u sheekaysanay waxaan ka wada hadalnay amba qaadista martiqaadkii rasmiga ah madaxweynuhu state visit-ka ah oo ku tagay iyo waxyaabihii madaxweyne Sisi iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo heshiiyeen isla soo meel dhigeen in la sii amba qaado madaxweyne Sisi wuxuu inoo muujiyay in mar walba dawladda Masar iyo dalkiisu diyaar u yihiin in ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay gacan siiyaan ka taageeraan xagga la dagaalanka argagixisada ka caawiyaan dhismaha ciidamka iyo amniga waxyaabo badan oo ay isla garteen madaxweynuhuna ay gacan inaga siiyaan waxa kale oo la kulmay aniga iyo wafdigayga ra'iisul wasaaraha dalka Masar waxay aad u danaynaysaa dhowr meelood oo muhiim ah in aynu iska kaashano ay ka mid tahay in xoolaha nool inaga qaataan beeraha ay maal gashadaan oo nagala shaqeeyaan waliba waraabka ama irrigation-ka beeraha kalluumaysiga oo ay rabaan inay ka faa'iideystaan biyaha oo ay aqoon fara badan u leeyihiin iyo tamarta waxyaabahaas oo dhan wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo isboortiga wuxuu la kulmay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dalka Masar oo iskaashiga labada dal ee dhinaca isboortiga iyo isdhexgalka dhalinyarada iyo labada shacabba ay aad uga wada hadleen waxa kale oo uu wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Masar ballan qaaday inuu inoo ahaan doono wakiilkeena Jaamacatul Carab aad inoogaga ololeeya sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan loola qaban lahaa marka safarkaasi wuxuu ahaa mid naajaxa waxyaabo badanna ay nooga soo qabsoomeen noogana soo kordheen intaas oo kooban baan ayaan ku soo gabagabeyn lahaa waa mahadsantihiin bahda saxaafadda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.